madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ku soo laabtay magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaarka ah Koonfur Galbeed. Madaxweynaha ayaa 3 toddobaad ugu maqnaa dalka dibadiisa howlo shaqo isagoona soo maray dalka Turkiga iyo Nairobi oo kula kulmay mas'uuliyiin ka socota hay'adaha qaramada midoobay iyo deeq-bixiyaasha isagoona kala hadlay sidii wax loogu qaban lahaa abaaraha ka jira Koonfur Galbeed iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, xildhibaano, wasiiro iyo shacab badan oo isugu soo baxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. Madaxweyne Cabdicasiis ayaa ka warbixiyay howlihii shaqo ee ugu maqnaa dalka dibadiisa isagoona sheegay in ay taagan tahay xilligii la isgarabsan lahaa isla markaana loogu xureyn lahaa deegaanada maamulka Koonfur Galbeed looga saaro Al-Shabaab. الله وبركاته. بعد السلام إلهي مهديس سفر شقو وسدح أسبوع قاطي يعني كم مغنين وأن كتغني مقالوينك اسطنبول iyo Nairobi kaasoo ahaa mid aan ka shaqeynaynay danaha dadka reer Koonfur Galbeed oo noocyo kala duwan isugu jiro. Waxaan la soo kulannay doonarkii iyo deeq-bixiyaalkii annaga oo ka hadlayno arrinta abaaraha ahayd ee muddada dheer soo socotay iyo arrimaha amniga oo mushkiladda soo cusboonaatay ee shabaabka. Dadkii aan la soo kulannay oo diblomaasiyiinta ah, safiirada iyo dadkii deeq-bixiyaalka ahaa iyo hay'adihii samafalka intaba waxaan gaarsiinay xogta dhabta ah ee Koonfur Galbeed maanta ay ku sugan tahay iyo baahida ay qabto iyo waxaan u baahannahay in nagala kaalmeeyo. Runtii si aad iyo aad u fiican baa naloo soo dhaweeyey. ballanqaadyo badan oo baahiyahaas ayaga wax looga qabanayo na waa naloo sameeyey. abiilka annaga waa kan abaarta. waxaa ilaahay mahaddiisa ah in shalay iyo xalay ay roobabkii dayrta ay bilowdeen oo ilaahay uu naqaboojiyey. alxamdulillaah ilaahay mahaddiisa. ilaahay ha noo ziyaadiyo abaarta oo waxaasoo dhan waa nimcada ilaahay baa looga bixi karaa. ilaahay baa dadka bixiyo. bini aadan kaalmadaas ma ahane wax kale uu galo male. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naxariistiisa na soo gaarsiiyo. intaas kadib runtii intii aan maqnaa nimankan nabadiidka ah oo Soomaaliya oo dhan mushkiladda ku ah dagaallo iyo weeraro iyo howlgallo xoog leh yaa Koonfur Galbeed ka dhacay. dadna waa ku dhinteen, dadna waa ku dhaawacmeen. intii dhimatayna Allah u naxariisto, intii dhaawac ahna Allah caafiyo. waxaan mar horena horay u sheegay haddana ku celinayaa loona baahan yahay oo muhiim ah bisaylka dadka Soomaaliyeed ay gaareen oo ay ku filan tahay intaan ka badan. wax walba waqti bay leeyihiin. shabaab waqtigiisa inuu intaan ku filan yahay. dadka Soomaaliyeedna waa fahmeen, annagana dadka Soomaaliyeedan ka mid nahay. waxaan u baahannahay marka mushkiladooda inaan tilaabo xoog leh aan qaadno. dowlad, shacab, dhaqan, dhalinyaro, haween si wada jir ah beled iyo baadiyabo in loo istaago sidii aan mushkiladdan shabaabka aan isu dhaafin lahayn. saa la socotaan intii aan maqnaa 3 isbuuc runtii meelo badan oo ay Koonfur Galbeed ka mid tahay yaa howlgallo muhiim ah laga sameeyey
oo isteedyadaas kale oo Soomaaliyeed ah sida Hirshabeelle iyo Galmudug laga sameeyay guulo badan baana laga soo gaaray annagana waxaan rajaynaynaa inaan guulahaas oo kale gaari doono sidaas oo kale gobolka Bakool daraad iyo shalayba howlgallo muhiim ah ka socday oo lagu xoreynayo degmooyinkii maqnaa degmo ka mid ah Rabdhuure ayadana aad u soo dhaweynaynaa waana xoojinaynaa haddii Ilaahay yiraaho waxaan ciidamada qalabka sida ciidamada Koonfur Galbeed shacabka reer Koonfur Galbeed culummada dhalinyarada haweenka ururada bulshada waxaan u soo jeedinayaa oon ku baaqayaa laga bilaabo awalba ayadoo horey loo diyaarsanaa maanta inaan u diyaar garowno isu abaabulno sidii aan isaga kicin lahayn shabaab isugu furi lahayn magaalooyinka howlgallo u bilaaban lahaayeen abaarta iyo wax walbaba iyo mushkiladda maanta Koonfur Galbeed ka jirta waa shabaab nin walbana meeshiisa iyo gurmadka ku gaaraya jidadka isu furmaayo waxaan nagala rabaa marka inaan u istaagno habeen iyo maalin xoreynta deegaanada sida dadka Soomaaliyeed kale ay ugu taagan yihiin aad iyo aad u mahadsantiin si guud iyo si gaar ahaaneedba waa u tashan doonaa cid kasta oo qusayso arrimahan amnigana waa kala tashan doonaa haddii Ilaahay yiraaho abaabulkii iyo intii aan maqnaa howlihii ay wadeen wasiirada iyo maamulkaba waa ku mahadsantiin anigana tiiban sii xoojinayaa howshii baan sii laba jibaari doonaa howlgalkii baa sii socon doona haddii Ilaahay yiraaho ma noqon doonto mana dhici doonto inay intay Soomaaliya oo dhan ay iska soo saaraan ay annaga nagu hakadaan oo ay noqoto god bahal galeen ah Koonfur Galbeed ay noqoto shacabka iyo dawladdu marna ma yeeleen ma noqon doonto meesha hukuumahooda ay yaaleen ma noqon doonto meel ayaga go'doon u ahaan doonto oo weligeed ahaan doontana ma noqon doonto nin walba oo naga mid ahna waxaan ka rabnaa waajibaadkaas inuu qaato mas'uuliyadaasna aan fulino insha Allah aad iyo aad u mahadsantiin mas'uuliyiintii iyo shacabkii iyo maamulkii degmada iyo dadkii sida qiimaha badan noo soo dhaweeyay waxaan kaga mahad celinayaa soo dhaweynta qiimaha badan oo xilli hore aad soo kacdeen naftirka xilli hore aan soo kacnay insha Allah tacaala waa shaqo adag yaa noo taalo waana istaagi doonaa shaqadaas aan u istaagi doonaa waana la guuleysan doonaa rajadaanadana aad u fiican tahay taageero dhinac kasta ahna waa helaynaa haddii Ilaahay yiraaho aad iyo aad u mahadsantiin Cabdi Ibrahim M24 TV magaalada Muqdisho